halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar Facebook iyo bartan internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel walba aad inaga maqlaysaana waa subaxnimo axada taariikhdana oo ku beegan tahay 30 bisha shanaad sanada 2021 Afrikada bari saacaduna waa 7 aroornimo. barnaamijka subaxnimo qodobada aan idinkugu haynana waxaa kamida haween isku howlay inay garab istaagaan haweenka u sharaxan golaha deegaanka iyo wakiilada Somaliland. lacag fiican baan haweenka u ururinay hargeysa dhexdeedana waan ka ururinay waxa jira haween qurbaha ahaa oo iyaga laftirkooda wax nagu soo daray marka alxamdulillah wax lagu farxo waxaan hore Somaliland uga dhicin inay maanta noo suurta gashay oo ay ka dhacdo. Ethiopia oo sheegtay inay jiraan dad isku dayaya inay wiiqaan madaxbanaanida dalkeeda. madaxa sirdoonka Masar oo booqasho ku tagay Israa'iil daanta galbeed iyo Gaza si uu wada hadal ula yeesho Netanyahu iyo Hamas. haddaba maxay ka dhigan tahay booqashadan? dhexdhexaadinaysa xabad joojintii ay wada galeen Hamas iyo Israa'iil taasoo ka dhigan in malafka ay dalbanayso Israa'iil oo ah in waxa weeyaan dadka u xidhan Hamas afarta qof ah Israa'iiliyiinta in la soo daayo. waxaa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan Chelsea oo markii labaad ku guuleysatay koobka Champions League. barnaamijka waxaa soo saaray Ciise Xaaji Cabdulla anigo Fartuun Ismaaciil Axmed ayaa idin la socodsiinaya ee subax wanaagsan dhageystayaal. marka hore aynu ku horumarno wararka caalamka ee BBC-da Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaa u diyaara. Cabdiraxmaan mahadsanid Fartuun. 10,000 oo qof ayaa mudaharaadyo ka dhigaya wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalka Brazil. mudaharadayaasha oo dalbanaya in madaxweyne Jair Bolsonaro xilka laga qaado iyagoo ka cadhooday jawaabta uu ka bixiyay cudurka safmarka ee coronavirus. ku dhawaad 1 milyan qof oo reer Brazil ayaa naftooda ku waayay coronavirus taasoo dalkaasi ka dhigayso dalka labaad ee ugu dhimashada badan dunida. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka digay inuu dalkiisa ciidamada ku sugan Mali uu kala baxayo haddii xasilooni darrada siyaasadeed ee dalkaasi ka jirta ay horseedo xag jirnimo ballaaran. Paris gobolka Sahel waxay ka howlgelisay ciidamo gaadhaya 5,000 si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaqyada kooxaha Islaamiyiintu ay ka wadaan gobolkaasi. Fallaago jihaadoon ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen magaalada Difa ee ku taala koonfurta bari ee Niger. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Niger waxay sheegtay tiro ka mid waxa ay ugu yeertay argagixisada jimcihii in la laayay. wararkuna waxay intaasi ay ku darayaan ugu yaraan 8 qof in halkaasi lagu dilay. Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa Kerry Simons ku guursaday xaflad qarsoodi oo ka dhacday kaniisadda Westminster ee ku taala magaalada London. munaasabadda arooska ayaa sabtidii dhacay iyadoo ay munaasabadda ay ka soo qayb galeen asxaabtiisa iyo waliba qoyska labada dhinac. balse xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa arooska ra'iisul wasaaraha wax faahfaahin aan ka bixin. 14 arday oo laga aftuubtay jaamacad ku taala dalka Nigeria ayaa la sii daayay. dabley aan heybtooda la garan ayaa 20 arday iyo 3 ka mid ah shaqaalaha jaamacadda bishii hore ka aftuubtay jaamacadda Greenfield ee ku taala gobolka Kaduna. waxayna dableydu markaasi dileen 5 ka mid ah dadkii ay aftuubteen iyadoo dalka Nigeria bilihii u dambeeyay ay ka dhacayeen aftuubyo loo geysto ardayda jaamacadaha iyo kuwa dugsiyada. ugu dambeyn dayax gacmeedka xamuulka oo Shiinaha laga leeyahay ayaa lagu guuleystay inuu si buuxda ugu xirto xarunta hawada sare ee Tianhe. dayax gacmeedka oo halkaasi geyn doono sahayda iyo qalabka erbixiyeenada. xarunta hawada sare uu Shiinaha ku yeeshay meeraha orbit ayaa la filayaa sanadka soo socda in ay si buuxda u howlgasho ilaa iyo 15 sano oo dayax gacmeedkaasi ku jiri doono hawada sare isagoo markaasi kormeeraya wareega dhulka. warkii idaacadda subaxnimo waa nageynta. aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayuu kaasi ahaa. dhageystayaal haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. subax wanaagsan dhageystayaal mar kale aynu ku bilownee madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka digay in uu dalkiisa ciidamada ku sugan Mali uu kala baxayo haddii xasilooni darrada siyaasadeed ee dalkaasi ka jirta ay horseedo xag jirnimo ballaaran. Paris ayaa gobolka Saaxil waxay ka howlgelisay ciidamo gaaraya 5,000 si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaqyada kooxaha Islaamiyiintu ay ka wadaan gobolkaasi. waxaa warbixintaasi noo faahfaahinayo haatan stuudiyaha ugula sugan Ciise Xaaji Cabdulla Ciise. fartuun
xaaladda dalka Maali ayaa gacanta ka sii bixaysay tan iyo markii maalinkii daraad ahayd ay ku dhawaaqday maxkamadda sare ee dalkaasi in gaashaanle dhexe Assimi Goïta uu si ku meel gaar ah uu u hayni doono xilka madaxweynenimo ee dalkaasi. Macron hadalkiisa ayaa ku soo aadaya xilli shir jaraa'id ay maanta yeelan doonaan, sidoo kalena uu shir ka dhici doono magaalada Accra ee dalka Ghana kadib markii madaxda urur goboleedka ECOWAS halkaasi ay shir kaga yeelan doonaan xaaladda dalka Maali oo ay markii horeba ku baaqeen haddii madaxweynaha ninka isu sharaxay ama isu caleema saaray Assimi Goïta oo gaashaanle dhexe ahaa uusan ka laabanin go'aankaasi, islamarkaasina dadkii u xirnaa maalin dhoweyd lasoo sii daayay oo ay ka mid yihiin madaxweynihii ku-meel gaarka ah Bahna Daw iyo sidoo kale Mukhtaar Awune, labadooda waa ay ku qasbeen militariga inay iscasilaan. Marka waxa uu isbedeladaasi ku dhawaaqay madaxweyne ninka hadda madaxweynaha Maali sheegtay si ku-meel gaar ah gaashaanle dhexe Assimi Goïta markii xilal laga qaaday madaxweynihii ku-meel gaarka ahaa ee Bahna Daw iyo ra'iisul wasaare Mukhtaar Awune. Labada hogaamiye xilalka laga qaaday ayaa laga soo sii daayay xabsi militari halkaasi oo lagu hayay tan iyo Isniintii aynu soo dhaafnay. Tallaabadaasi ayaa lagu tilmaamay inqilaabkii labaad ee dalkaasi ka dhacay muddo 9 bilood gudahood. Marka isku soo wada duduub fartuun wasaaradda warfaafinta ee Ghana ayaa waxay sheegtay in xasiloonida Maali ay mudnaan iyo muhiim u tahay dalalka ku yaala galbeedka Afrika. aad buu mahadsan yahay ciise xaaji cabdul ayuu kaasi ahaa. dhegeystayaal haatanna golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee PP ayaa shir isugu yimid labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waxayna soo saareen bayaan ay ku sharaxayaan mowqifka dalka ee arrimaha gudaha, dibadda, diblomaasiyadda iyo mowqifka Itoobiya ee la xiriira geeska. waxaana qodobadii ugu mudnaa warmurtiyeedkaasi ka mid ahaa in ay tilmaameen in ay jireen dad wiiqaya madax banaanida dalka Itoobiya. haddaba si aan u falanqeyno qodobadaasi iyo guud ahaan xaalka ku gadaaman shirkaasi ayaa waxaan la xiriirnay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ku magac dheer Xirsi Neero oo xildhibaan ka noqday Itoobiya haddana falanqeeya xaaladda geeska, waxaana u waramay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. runtii dowladda Itoobiya xisbiga talada haya dalka PP ayaa warsaxaafadeed soo saaray shir ay 2 maalmood ku jireen iyagoo ay yiraahdeen ama ay ka jawaabahayeen waxay ku tilmaameen faragelin shisheeye iyo saameynta ay Itoobiya geeska Afrika ku leedahay iyo arrimaha run ahaantii buuxinta webiga Abaay. marka qodobada ayay yidhaahdeen waa qolo faragelin siyaasadeed iyagoo sababeynaya ay leeyihiin arrimaha bini'aadamnimada iyo xuquuqul insaanka gobolka waqooyiga Tigreega. marka sa adigu haddaad ka dhawaajisay waxay sheegeen in wadamo badan marka siyaasado kala duwan iyo arrimaha webiga iyo waxyaaba nooca kusoo gabanaya inay faragelin ku hayaan. marka wadamadaasi miyay sheegeen ta kale faragelintaasi intay gaarsiisan tahay? ma hadalkii Mareykanka maandho ka soo yeedhay inbuu salka ku hayaa mise arrimo kalaa jira? dhaqdhaqaaqyo ayaan arkaynaa dalka Egypt iyo dalka Suudaan oo wadajir ah oo xagga webiga Nile iyo buuxinta webiga Abaay ay dowladda Itoobiya xidhay. dhaqdhaqaaqyada military iyo pressure-ka wadamada jaarka Nile-ku uu qoseeyo iyaad moodaa marka ay leeyihiin wadamo macnaha jaarka ayaa faragelin lagu haya iyadoo ayna specific ayna sheegin dalalka, laakiin waxaan ka dhadhansanaynaa dhaqdhaqaaqyada ay dowladda Egypt iyo madaxweynaha Al-Sisi oo socdaal ku marahayay dalka Kenya iyo Djibouti. marka taa iyadoo ay salka ku hayso haddana waxaa iyadana dheeraad ahayd Mareykanka oo pressure saaraya dalkan iyo xaaladaha gudaha ka jira iyo iyagoo mar waliba dowladda Itoobiya dhowr jeer ay u yimaadeen wufuud kala duwan oo Mareykan ah iyo senataro ay kula taliyeen inay dowladda inclusive ah oo wadaaga inay dhisaan humanitarian-kana ay u fasaxaan ciidamada Eritrean-ka ay jooga gobolka Tigreega ah iyo ciidamada kale maleeshiyaadka Axmaaradu waxa laga saaray bay ku taliyeen. ilaa haddana wax steps oo xagga loo qaaday xaalad iska yar murugsan celina ayay u ekayd
jawaabta dowladda sida ay dadka inta badan u arkaan. laakiin ma is leedahay markaad fiiriso mowqafka dowladda amaba xisbul xaakimka go-aankani shirkoodu ay ka soo saareen waxbay ka bedeli kartaa hadalkii Maraykanka ka soo yeedhay? iyagu go'aamadooda waxay ku saleynayeen run ahaantii buuxinta webiga iyo doorasho macnaha nabad ah oo inay dalkan ka dhacdo kuwa ka soo horjeeda oo faragelin lagu haya yaa arrimaha dalka faragelin ku haya. marka ilaa the access to humanitarian la helo qaybta nortiga ah ciidamada foreign-ku ay ka baxaan siday ku sheegeen warbixinta qolada Maraykanku iyo maleeshiyaadka axmaarada dowlad macnaha inclusive la dhiso waxyaabaha inaha in wax laga qabto oo doorasho xor oo xalaal sidan kuma dhici karta bay leeyihiin. laakiin iyagu jawaabtoodu waa xoogaa waxaad moodaa in ay isadkeyn ay ku jirto ay ku adkaysanayaan go'aamadooda iyo rabitaankooda. marka faragelinta siyaasadeed ama faragelinta shisheeye waxa ay dal isuga celin karaa markuu dhaqaalihiisu uu fiican yahay gudihiisana ay dhibaato jirto. marka labadaa midba ma jirtaan leeyahay. marka ugu dambeyn walaal xirsi go'aanadii shirka ka soo baxay ee xisbul xaakimka ee BP markaynu isku soo duubno oo arrimaha dibaddan aynu ka soo laabanno xisbul xaakimka gudaha culaysyo badan baa ka haystay dagaalka Tigray kan deegaanka Oromada qaybo kamid ah ka socda kan Soomaalida cafarta u dhaxeeyay arrimo la mid ah. marka culaysyadii gudaha dalkaasi ka jirtay maxay ka bedeli doontaa bay kula tahay markaad qiimayso? walaal go'aamadooda waxay ku xidhnaanaysaa sida kolba ay u hirgeliyaan ama loo implement gareeyo deegaanadan isku dhacyadan dhibaatooyinkan ka jira genuinely. marka ilaa hadda ima muuqato dhibaatooyinkii gudaha wax xal ah oo ilaa hadda laga gaaray deegaanada laysku hayo iyo dhibaatooyinka ka taagan gobolka Oromia Tigray region oo iyaduna dhaqdhaqaaqyada TPLF ay ka wada iyo ay kula dagaalamayso xukuumadda iyo maleeshiyaadka axmaarada iyo kuwa Eritreanka. marka xal siyaasadeed bay u baahan yihiin waxaan oo dhan in laga gaadho. gudahaaga markaad nadiifiso ayaa daaradda nadiifin kartaa. marka dhibaatooyinkaas oo dhan xal siyaasadeed bay u baahan yihiin. markaa kabacdi ayaa run ahaantii wixii kale ee dibadda wax laga qaban karaa. kaasi waxa uu ahaa Xirsi Cabdilqaadir Maxamed oo ku magac dheer ee Xirsineer oo u waramayay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. halkaad weli naga dhageysanaysaan waa laanta Soomaaliga ee BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. maanta oo keliya ayaa inaga xigta doorashooyinkii isku sidkanaa ee baarlamaanka jamhuuriyadda iskeeda madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland iyo golaha deegaanka oo qorsheysan maalinta biri ah ay 31 May in ay qabsoomaan. baarlamaanka Somaliland ee hadda jira haweenku waa hal gabar oo keliya waxaana hadda sharaxan haween dhowra inkasta oo ay wajahayaan caqabado kala duwan. halganka ah in haween badani doorkani soo baxaan ayaa waxaa qayb ka ah ololaha hiil haween oo ay bilaabeen hablo si mutadawacnimo ah ee ugu ololeynaya haweenkaasi dhanka kalena ka kaabaya xagga qaranka. haddaba Muna Xuseen Khaliif oo howlwadeenada hiil haween kamid ah ayaa inooga warantay sida ay wax u wadaan ilaa iyo hadda waxaana ay u warantay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil. waxaanu nahay hablo khaasa iyo dumarkeeni waaweynaa Somaliland ee 30 sano Somaliland jirtayba Somaliland wax badan ka soo qabtay oo labeenta Somaliland ah ayaan anagu ula baxnay guurti amba nusabeed marba ka taqaanay iyo team habla ahaan ah anigeygana kamid ahaa ayaa si tabaruca oo isku xilqaamay in ay caawiyaan 20 ka hablood ee musharaxiinta Somaliland ah. marka waxa la isweydiin karaa haddaad habla khaasad tihiin ma idinkuun baa doorteen aad habla ahaataan mise raggii waad raadiseen oo gacan waa ka weydeen? maya waxaan doonaynay in badan lagu soo noqnoqotay dumarku isma caawiyaan isma taageeraan isma garab galaan dhaqaale ahaan isma siiyaan. marka waxaan doonaynay inaanu tusno inay dumarku istaageeraan iscaawiyaan nila qabiil maaha laba hablood kaliya gobolkan Hargeysa ka sharaxan gobolada Somaliland dhan bay ka sharaxayeen laakiin dumarnimo iyo gabalnimo iyo inanimo aan u agtaagnay. marka ilaa hadda maxaad tarteen? ما شاء الله waxaan ugu talagalnay barnaamijka bilowgiisii inaanu aan isla qaadano 3 qaybood inaanu ka caawino haweenka ka koobaad oo ah isku xir bulshada dhexdooda oo aanay awoodin haweenku sida ay rag u awoodaan in ay inanku ama mijilis
amba cafeteria maanta dhan uu fadhiisto oo fikirka isaga ku jira uu ka dhaadhiciyo 10 kooxood iyo in ka badan gabadhu uma laha awood amba access in ay siiso dumaro amba bulsho kala duwan fikirka iyada ku jira ay ka dhaadhicisiyo waxa ay doonayso marka waxaan isku daynay bal inaanu bulshadii dhexdoodii sida hablihii jaamacadaha iyo bulshada dhexdeedii aanu isku xir ugu sameeyno talabaad oo ahaa inaanu cod haweenka la raadino saddexaad oo inaanu qaadaan oo caqabada ugu weyn ee musharaxiinta markii aanu la kulannay ay ka cawdeen waxay ahayd qaadaan inta badan dumarku ma laha hanti intay xaraashaan ay ku galaan ololaha campaignka marka waxaan isku daynay inaan xagga dhaqaalaha ka caawino saddexda arrimood baan isku qorshaysnaa inaanu haweenka ka caawino waa markii ugu horeysay Cabdiraxmaan oo Somaliland ka dhacdo in la yiraahdo inagu dhexdeena aan ku tashano oo bal haynu iska dayno wax dibadda inaga yimaada lacag fiican baan haweenka u ururinay Hargeysa dhexdeedana waanu ka ururinay waxa jira haween qurbaha ahaa oo iyaga laftirkooda wax nagu soo daray marka alxamdulillah waa wax lagu farxo waxaan hore Somaliland uga dhicin inay maanta noo suurta gashay oo ay ka dhacdo marka hore waxa looga caban jiray in raggu gacan bidixeeyaan dumarkii idinka laftiina ma la is odhan karaa waxaad abuureysaan jawi kala qaybsanaan oo rag iyo dumar ah markasta oo aanu kala kulmayno amba siyaasiyiinta ama madaxda Somaliland amba bulshada dhexdeeda wixii wiil iyo gabadha ragga waxaanu ku lahayn in badan bad codna weydiisanaysay maanta waxaanu ka codsanaa qaadaan wixii awoodaada ah iyo hal cod inaad noo siisid gobol kastoo joogtid inan joogtay inaad cod noo siisid in badan baad cod noo soo doonateen maanta anagu waxaan idiga baahanahay cod aanu ku garab istaagayno haweenka Somaliland ee maanta Somaliland u sharaxan imika doorashadii maalin baa ka hadhay intaasaad sidaad sheegtay dadaalkaas soo wadeen maxaa filaysaan haweenkaas inay soo wada bixi doonaan mise tirooyin aad ka salugsantihiin baa jiro imika in go'an baad rajaynaysaan inay si gaar ah u soo baxaan horta 20 hablood baa noo sharaxan waxaanu ku rajo weynahay inay noo soo wada bixi karaan 20 hablood haddii soo wada bixi waayaan inta badan baa soo bixi doonta biidnillah laakiin maanta baaq gaar ah u dirayaa bulshooyinka Somaliland ee rag iyo dumar waxaan ka codsanayaa guri kasta oo ay cid ku nooshahay haddii ay haweenka codka noo wada siin kari waayaan inay noo qaybiyaan oo ay inna ragga siiyaan inna haweenka siiyaan taasi waxay ahayd Muna Xuseen Khaliifa oo u waramaysay wariyahayaga Cabdiraxmaan Cali Dhimbil haddii aynu eegno dhanka iyo dhageystayaasha dhanka Facebook inooga soo diray fariimaha maxamed shaafi sheekh xasan oo jooga caabud waaq ayaa waxa uu leeyahay haweenkaas isku howlay inay garab istaagaan haweenka musharaxiinta doorashooyinka ee isku sidkan ee golaha wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland ee la filayo inay qabsoomaan maalinta biri ah haddii alla idmo runtii waan soo dhaweynayaa buu yiri talaabadaasi ay qaadeen haweenkaas inay garab amaba garab isku muujiyaan waa si wanaagsan mahadsanid buu yiri waa hagaag Faaraxa Bashiir oo jooga Garowe ayaa isna waxa uu leeyahay haweenka reer Somaliland ee garab istaaga muujinaya amaba u muujinaya dumarka u sharaxan golaha deegaanka runaantii waa mid ka turjumaysa buu yiri sida ay dumarku isku dareena u yihiin waxayna ila tahay haddii ay midoobaan inay ka soo dhalaali doonaan doorkooda siyaasadeed iyo midka golaha deegaankuba aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo dhanka Facebook aragtidooda inoogu soo gudbiyey waa hagaaga ciyaarihiina waa inoo soo socdaan balse haatan madaxa sirdoonka dalka Masar ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago Israa'iil daanta galbeed iyo Gaza si uu wada hadal ula yeesho Israa'iil ama waan raahday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo Hamas sidaasi si lamid ah wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa maalinta biri ah u safri doona magaalada Qaahira si uu kulan ula qaato dhigiisa dalka Masar waa markii ugu horeysay oo uu wasiir arrimaha dibadeed uu booqasho ku tago Qaahira tan iyo sanadkii 2008 haddaba maxay ka dhigan tahay booqashadan uu wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ku tagayo Masar su'aashaasi iyo kuwa kaleba waxaan hordhignay Cabdiraxmaan Xadaan oo ka faalooda arrimaha Carabta qadka telefoonka ayuuna iigu waramay runtii ashkanasa ay imaatinku imanayo Masar waxa ay ka dhigan tahay laba fariimood uu doonayo inuu Masar u keeno oo ah dhexdhexaadinaysa xabad joojintii ay wada galeen Hamas iyo Israa'iil taasoo ka dhigan in malafka ay dalbanayso Israa'iil oo ah in waxa weeyaan dadka u xidhan Hamas ee 4 qof ah Israa'iiliyiinta ah in la soo daayo si waxa weeyaan loo dhiso Gaza waxa loo ballan qaaday in la dhisayo 350 milyan Mareykanku bixinayo 500 milyan oo qadar ay bixinayso malafka uu doonayaa malafka labaadna waxa weeyaan in maamulka Filistiiniyiintu ay ka soo saaraan inay ku dacweeyeen Israa'iil inay arrimo bani'aadnimada ka dhana ay samaysay oo markaa maxkamad lagu taagayo
taasoo 66 caruuri ay ku dhinteen maalmihii dagaaladu ay socdeen xamaas iyo israa'iil. marka labadaa malaf ayuu doonayaa in uu markaasi damaanad uu ka helo masar si markay ay u tegayso xamaas arrintaa looga qanciyo. marka booqashadan ma waxay daba socotaa cadaadis uu xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ku saaray Israa'iil in heshiiska ama wadaxaajoodka uu ka dhaco Qaahira? runtii masar iyadaaba imika ilaa hadda dhexdhexaad ka ah oo xabajoojintii bay qayb ka ahayd iyadii Qatar, laakiin masar de waa awood weyn bay ayaa markaasi Mareykanka uu saaray oo runtii uu doonayay inay iyadu mar kastaba malafka ay gacanta ku hayso. marka saas ayaa horta loo wada imanayaa masar, laakiin ujeedada imika ugu muhiimsan waxa weeyaan xabajoojintii ayaan sal ku taagnayn oo nimankii xamaas weli way hanjabayaan. waxaanay leeyihiin xabajoojin waanu sameynay, laakiin de wixii aanu doonaynay weli maanaan helin oo ah in Qudus faraha laga qaado. durtaba waxaa soo baxaysa in sheekh waxa weeyaan al-Jarraax amba xaafadaas in weli ka saarayso Israa'iil dadkii Falastiiniyiinta ay ka barakicinayso. marka taa in la joojiyo iyo in Gaza laga qaado cunaqabatayntan lagu hayo dee dhowrka 20 sano ku dhow. marka labada arrimood ayay doonaysaa in xamaas miiska lagu soo daro, laakiin Israa'iil waxay ku soo dartay miiska in 4 Israa'iiliyiinta xamaas ay haysatay in la soo daayo iyo in maamulka Falastiiniyiintu ay ka saaraan malafka odhanaya waxa weeyaan 66 caruur disheen. marka waa in maxkamad leedin taaga. sidee ayay uga falcelin karaan Falastiiniyiinta kulanka Masar iyo Israa'iil? Falastiiniyiintu waxaad moodaa inay siiba hadleen oo masalan Yaxya Sanwar iyo ninkan la yiraahdo Ismaaciil Hunaya waxaad moodaa inay hore u sii hadleen khudbadahoodii, waxaanad moodaysay inay ku celcelinayeen inaanay wax dhibaato iyo badan soo gaadhin marka loo eego sanadihii hore. marka waxay Masar cadaadis ku saarayaan inaanay Masar aanay daciifin mar haddii aanay Israa'iil wax weyn ka qaadin maanta Gaza. saasay iyagu u hadlayeen khudbadahoodii in Masar ay waxa weeyaan eegto munaqabataynta saaran Gaza, in ay Masar eegto waxyaalaha kale waaweyn masalan in Filistiin xal weyn laga gaadho oo aanun la eeganuun 100 sano dadka barakacayaasha ee hore loo barakaciyay Suuriya iyo Lubnaan iyo Yurub degan iyo dadka kale ee waxa weeyaan ilaa ay hadda ku dhibaataysan meelaha kale ee masalan waxa weeyaan daanta galbeed iyo Gaza iyo Qudusba. marka waxay leeyihiin Masaray mar haddii malafkii gacanta lagu soo galiyay, mar haddii Mareykanku aanu sidii hore ahayn oo moodo inuu Mareykanku isbedelo dirtaba qunsuliyadii halka ahayd inuu safaaradda u soo wareejiyay Qudus ayaan tidhito ku dhawaaqay inuu qunsuliyad ka dhigayo oo macnaheedu ay tahay inuu Trump arrintiisii laabay. waxa weeye Masar inaanay jilcin oo aanay dabcin oo sida Falastiiniyiintu ay u adag yihiin ay ka sii adkaato mar haddii gacantooda awoodda ay ku jirto. waxaa lagu wadaa in Israa'iil ay xukuumad cusub yeelato maalmaha ama saacadaha soo socda. marka ma u malaynaysaa in dowladan cusub ay wax ka bedeli doonto mowqifka ah in ay wada hadal yeeshaan Israa'iil iyo Falastiin? runtii waa dhici kartaa, waxaana aad loo badanaya Netanyahu inuu ku khasaarayo in waxa weeyaan doorashadan sababtoo ah Netanyahu uu ku fashilmay baa la leeyahay dagaalkii ugu dambeeyay. siduu isagu wuxuu islahaa waxa weeyaan dagaalka haddaad qaado codkaaga ayaa kor u kici doona oo wuxuu gaari doonaa heer lagu wada doorto, laakiin sibaad moodaa imika inuu u niyad jabsan yahay. haddiiba Netanyahu laga guulaysto oo gruub kale oo bidixaysan oo masalan ka yar fudud kuwan midigaysan, waxaa dhici karta in isbedelkii hore ee la odhan jiray wadahadal ha lagu dhammeeyo arrimaha Filistiin iyo Israa'iil inuu dib u soo noqdo. waxaana caawinaya Mareykanka oo nimankan imika qabsada ay doonayaan in wadahadal arrintii lagu dhammeeyo dagaalka la joojiyo. kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xadaan oo qadka telefoonka iigu waramayay. dhegeystayaal haatanna ciyaarihii iyo wariyahayaga Cabdiraxmaan Bidhaan Xaaji Taahir. waxaa xalay la isugu bareeray ciyaarta Champions League ee Europe finalka oo ka dhacaysay magaalada Porto ee dalka Boortaqiiska. ciyaarta ayaa dhex martay laba tiim oo ah Ingiriis, labaduba waa Chelsea oo reer London oo xaafadda qaniga London ka soo jeeda iyo Manchester City oo ah waqooyiga Ingiriiska oo iyaduna magaaladaas ka soo jeeda. labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaraya Boortaqiiska iyadoo laga soo bedelay ciyaartaasi inay ka dhacdo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo ahayd markii hore lagu qabto sababo la xiriira COVID-19 oo halkaas ku batay. waxay noqotay ciyaartu waxay ciyaar aad u adag oo aad u xiiso badan. labada kooxoodna waxay soo bandhigeen ciyaar runtii hufnaan badan ka muuqato. si kastoo ay haataba ciyaarta marka daqiiqadii 42aad maraysay waxa gool shabaqa lagu hubsaday
Man City waxaana u dhaliyay Chelsea Havertz. Mentioned Leicester's recruitment, David, and he was one who really sparkled at Leicester initially. Ederson off his line. Havertz! Chelsea in front. marka waxay noqotay ciyaartii inay natiijadeedu ku soo ururto gool iyo eber. Overhit by Ederson, and it is Chelsea who have won the UEFA Champions League 2021. inkastoo labada kooxoodba ay weerarcelin wadeen ayaa haddana waxaad moodaysay in qaybtii hore ay Chelsea fursado badan heshay inkastoo Man City-na ay markii dambe dadaashay qaybtii labaad iyadoo waxaas u dhamay jireen ayaa haddaba waxa jirta in ciyaartan ay ahayd ciyaar ay saameysay COVID-ku oo dad fara badan ay ka tageen iminka dalkan Ingiriiska oo waliba taageerayaashu oo ay u duuleen dalka Boortaqiiska oo isagu uu yahay dal ay u furan tahay in laga qayb galo loo safri karayo. isku soo duubo labada kooxood haddii aan waxoogaa idinka warramo sidaad ogtihiin labada kooxood Man City waxaa leh amiir ka tirsan dalkaasi ee Imaaraadka Carabta waa Sheikh Mansour waa wasiirka madaxtooyada Imaaraadka oo $100 milyan ku maalgeliyay tiimkaasi. tiimka kale ee Chelsea laftigiisa waxaa leh ninka Ruushka ah ee taajirka weyna ee bilyaneerka Abramovich oo imika degan dalka Israel waxaana taas ku tusaysaa in labada kooxood labada taabarana Guardiola oo Spain u dhashay watay Man City halka uu Tuchel oo u dhashay dalka Jarmalka oo watay Chelsea. marka waxay ahaayeen laba kooxood oo caalami ah oo ciyaartooyga ka ciyaarayana ay ka kala yimaadeen daafaha adduunka. sidii aynu maqlaynayna waxaa jirta in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed amaba taageerayaasha kubadda cagta ee Soomaaliyeed meel kasta joogaanba ay labada kooxood la kala safnaayeen. waxaana la hadlay goobtii aan ku daawanayay magaalada Bristol qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu ka qayb galay ama ka daawanayayba goobtaasi aanu joogno. waxaana la hadlay qaar ka mid ah kuwa Chelsea baa noqotay championki waxay la fadhiyaan taageerayaasha Chelsea mid ka mid ah maxaa wada lahayd Mustafa waxaan oran lahaa halkan caawa celebration aad iyo aad baan u taageeranay Chelsea caawa waxaan dareemayaa caawa inay Chelsea noqotay teamkii European Championka horyaalka sanadka marka we feeling happy we are so grateful keep going baan leeyahay Naazil Mustafa halkan kubadda lagu daawanay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baa joogtay waxaa ka mid ah Liibaan oo taageera Man City. Liibaan sidee baad dareemaysaa iyadoo caawa ay guuldaro idin raacday arrintaas Chelsea ay guusha gaartay aad baan uga xumahay caawo lama cabiri karo xamaasadda ay heeso dhiigga ay ugu karsan maqaaxida inaan degdeg uga baxayo waayan seexdo laba barasno oo lacabo waxaa jooga mulkiilaha isagu maqaayada lagu daawanaya Amiin oo isaguna Chelsea taageera Amiin saad aragtaa ciyaarta si fiican baa u dhacday meesha lama qaadayo Premier League iyo FA Cup iyo waxyaabihiis ka la qaadmayo waxay maraysaa Champions League waa markii koobaad iyagu final yimaadaan anagu dhowr jeer hore aan ka qaaday taariikhdu way isqoraysaa niman soo jabi jiray baan nahay waan naqaan haddaan final nimaadna sida loo badiyay sida loo qaaday iyo sida loo losgareeyay maantana waa maalin aan badanay Cabdiraxmaan Bidhaan Xaaji Daahir Bristol bidhaan aad buu mahadsan yahay isaga ayaan ugu dambeeyay idaacadeena subaxnimo waxaan dib hawada ugu kulmi doonaa labada duurnimo hadduu Allaah wada uu ogolaado inta ka horeysana nabadiino